waxaa la yidhi somalilan u yeerinaa waxa u yeerisaa somalilan u yeerinaa waa ka amni badanta somalilan kow afrikaan ma waardeeyay somalilan labo dictator uma taliya somalilan waa is doorataa saddex somalilan habeenkii guryaha looma dhaco dadka afar somalilan gabdhaheedu qiimay leeyihiin somalilan deegaanka ay degan yihiin cod iyo qofa la isku doortaa somalilan 30 sano way horumartay waxaan rabaa marka inaan mid ku sheego hal mid inaan ku sheego wallahi billahi tallahi hawiyad noloshiisa maslaxadiisa sharafkiisa waxay ku jirtaa in somalilan ay go'do sharafka nolosha hawiye qiimaha hawiye prosperity-ga hawiye soomaaliya inay horumar samayso soomaaliya inay dimuqraadiyad noqoto soomaaliya in walba wixiisa yeesho isku dul noolaashaan in laga baxo waxay ku xiran tahay qofka hawiyaha inuu garto reer somalilan inay goostaan goosashada reer somalilan ay goostaan xataa waxay awoodaysaa inteedna soo hartay inay gogol noo dhigaan laakiin inaad ku dhigan tahay xasidaysid meel kasta qoraal aad ka qoraysid subax walba waa sii kala fogaanaynaa waxaan usii dhawaanaynaa etoobiya ninka dhahaya eritrea laga qaado cunuqabataynta somalilan hala saaro ninkaas wuxuu ku leeyahay soomaaliya nahay kenyaati aadan barre ducaale ka qaatay ninka u farxaya wiilkii yaraa oo haddii ilaahay ku ruuya qalbi dhagaxa u dhalay ooyaya ninka haddii ilaahay ku ruuya inta ninka haddii ilaahay ku ruuya muqdisho askari iyo wiil iyo oday iyo habar iyo gabar iyo cid walba waa cabaadaysaa hal gabar oo ku dhimatay ingiriiska ka qiimo badan waxaa odaygaas waa cabaadaya fiiri gabadhaas waa gabar soomaaliyeed gabadhaas waa gabar soomaaliyeed muqdisho ka tagtay okay wax la dhegeysan kara xataa ma aha gabar soomaaliyeed oo qashin la cunsiinayo sacuudiga joogta muqdisho ka tagtay meel kale kama tagin sidaa awgeed walaalayaal intii aynaan noqon sidii nagu dhacday lama rabo qofka markay tiibisha ku dhacday dadka tiibisha la jeclaado lama doonayo ari weer helay oo kale inaad noqotido aad jeclaatid ariga inaad intaa ka cuni kartid maaha inta kalena abaabaysa garaasha aan lama rabo wixii uu siyaad barre yidhi dal layga dhexli maa iyo dal layga dhexli maa dad layga dhexli maa lama rabo sida farmaajiya kheyrar ku socdaan shidaalka waa xaraashanaynaa kalluunka waa xaraashanaynaa dal iyo dunyo waa kala diraynaa muqdisho waa barkanaynaa dadkuwa caqliga fiiri reer somalilan wax aniga faa'iidaysa anima ba aqaanba reer bunt rabaa inaan dhaho walaalayaal waxaan rabaa aanan xasdin caqiba xasidna aanan ku noqonin aan sheego in dadka reer somalilan dad ay la hadlaan aan ka hoosayno waa ka hoosaynaa walaalayaal waa in ka hoosaynaa oo fahmadda waa idinka hoosaynaa oo dhiigga fiiri qofka wax ku darsanaysid waa in dhiiggiisu qiimo leeyahay dadka reer koonfurta dhiiggooda qiimo male dadka reer muqdisho dhiiggooda qiimo male dadka reer muqdisho gabdhahooda waa raqiis dadka reer muqdisho waan dheska dardara dadka reer muqdisho cod male dadka reer muqdisho cid walba gorgorsata dadka reer muqdisho khadiija deeri cumar talxa u dhaaranaya dadka noocaasa inaad wax ku darsataan aba dembiyaba fiiri agoon wax laguma darsado agoon xoolihiisa lama taataabto agoon waa ka liidanaa oo ilmi reglaan nahay oo waa jabnay oo fahmad ma hayno oo waxba ku siyaadin mayno oo dhaqanka la ogisiyaan ka nahay maxaa nagu darsanaysaan xilligii furus iyo rum dadkii deganaa quraysh waa ka xishoodeen boqorradii furus iyo rum inay gumaystaan maxaa yeele waa ayeen dad doorshaanka cuna qaawan intuusan nabiga soo bixin hooyooyinkood guursada iyagoo qaawan dawaafa markii la fiiriyey waxaa yidhi kuwan waa zingizingi eber kuwan waa ebra layidhi xataa wax la gumaysta ma istaahilaan sidaa awgeed ilma reer somalilaano bini aadan horta waxa ku darsataan somaliland ma ka soo horeysa qofku waxa la yidhi akhrij akfaana isku kufba maahinba waa naga caqli badantiin waa naga fahmad badantiin waa naga dhaqan fiicantiin dadkiina waa dhowrateen odayaalkiiniya idin taliya waas haddii ilaahay ku wax xisaabtamaysaa been idin ma sheegi karo maalin kasta wixii rabo idinkuma samayn karo sidii rabo idin ma lay karo fiili waa la idin caayaya etoobiyaanay raaceen war etoobiya maaha afrikaan iyo ugandas iyo haddii ilaahay ku ruuya tanzaniyaan iyo nigerian iyo cid walba nafuusho na kufsatay dadka naga qaadatay xoolaha nagii waa balalo jayna badanadii galay ilma adeeryaal waa dhaqantihiin goor dhaqanna waa baxsateen mar dambe waxaan wax lamidana ha soo hor fadhiisanina koonfurna waa xaqiiq dadka reer koonfureed marka waxaan ka rabaa dadka reer koonfureedu waa inaad public la soo istaagtaa waa haddaa garanaysaa soomaalinimada farmaajo waxay tahay eritrea
oo jabuuti dhul ka haysata in farmaajo dowladdiisii qaramada midoobay ay la taagneed eritrea cunaqabataynta ha laga qaado waa taasaa soomaalinimada farmaajo wiil soomaaliya iyo hooyadiisuu oynaya in etoobiya loo dhiibo waa soomaali jacaylka soomaaliya soomaali jacaylka soomaaliya waxay tahay caaway in shidaalkii soomaaliya la xaraashayo baddiina jayna laga iibiyey soomaalinimada soomaali jacaylka farmaajo waxay tahay muqdisho habeen iyo maalin inay ooyeyso habeen iyo maalin inay ooyeyso waxaan codsahaynaa haddaan askartiin nahay waxaan codsahaynaa haddaan odayaalkiin nahay waxaan codsahaynaa haddaan saraakiishiin nahay kii qoriga wata waxuu codsaa hooyadii indhaha leed waxay codsee bajaajlihii waxuu codsaa kii jidka ka xirnaa waxuu codsaa islaanta ilma ku qolocdeen waxay codsee meesha noocaasa ilma adeeryaalo ilaahay baan idinku dhaarshay weerku waxaa layidhi weerku waxaa layidhi ariga baahi kaliya uma laaya caaqib xasidnima u laaya waxaan rabaa marka inaan idiin sheego rabaa farmaajo wuxuu u yimid puntland iyo jubbaland iyo galmudug iyo koonfur galbeed iyo muqdisho wada socda maanta muxuu hayaa ninkaasaa wuxuu leeyahay somalilandan gooba ilaaha idinku dhaarshay somalilandan gooba huu leeyahay labo waxay la soo fadhiisanayeen meelaha babliga oo aan ka faa'iidnay waxaan u yeeraynaa soomaalida kale oo somaliland baan u yeeraynaa okay somaliland waxaasaa lagu yeeraa soomaha somaliland waxaasaa lagu yeeraa waxaan rabaa marka waxaan kuu sheegaa somaliland waxaa loogu yeeraa farmaajo iyo qadiijo diiriyo heesaayo farmaajo iyo qadiijo diiriyo heesaya somaliland loogu yeeraa ilaah ay ku dhaarshay adna aadanna waa lagu caynaya adna aadanna waa lagu caayaya waxaan rabaa inaan kuu sheego waxaa loogu yeerayaa somaliland meel dadka maalin kasta lagu dilo oo cid u qabata aan la arag waxaa loogu yeerayaa somaliland مقدشو gaar ahaan gobolka banaadir ciidankaas waa la yaqaanaa meeshuu ka diiwaan gashan yahay askarigaas waa la yaqaanaa walaal waxaan kaa rabaa waxaan rabnaa haddii ilaah yidhahdo in loo cadaalad faro sanad ka hore kaan ka cabanayna waaga cadaaladiisa aan la nahay oo ninka nala musuqmaasuqay haddana kii kale aanan wax cadaalad ahoo ka hadla iyo wax u socda aanan arkin annagu marka waxaa waaye inaan dad helno oon xaquuqdeen helno waayahay inaan xuquuq helnaa codsahaynaa waa gartay inaan xuquuq helnaa codsahaynaa kana maxaa codsanaysaa askarigu maxaa codsanaysaa xogta Soomaaliya ka tirsan qaybta barta aan joogo ay ugu yimaadin baahidiidana ay warsadaan okay askarigii muqdisho waxbuu codsanayaa hooyadii muqdisho waxay codsanaysaa bajaajlihii muqdisho waxbuu codsanayaa dad waxaan u jeclahay etoobiya dad waxaan u jeclahay eritrea aad axmed mudoobe waa tuug puntland tuuga weeye iska dhaaf galmudug meelaan barkadi ma aqaani hirshabelle bariga ha u qabanin shidaalka badda ka iibso shiinaha ka iibso kalluunka somalilandna aan u yeerno waxay la mid tahay marka waxaan la hadlaa reer somaliland waxay la mid tahay ninkii xaaskii uu soo guursaday ay subax walba tuugsatay dariska gaaja haysi canjeele isii oo yaa meeshaan kugu dhiftay xalay waxaa i dilay ninkii i qabay oo cunto ma kuu keenay maya baahi miyuu kugu dilay haa isaguna uu subax kasta waddada taagan yahay uu leeyahay gabadh war gabar igu dara cidahu lama agmara gabar ha ligu daro isla xaas fiican ha ligu daro habeen kasta midaanu usoo hoyana ceegow ku dhagaa ilmay u dhale waa gaajaysan tahay waa dilaya waa dhibaataysan tahay haddana waxaan rabaa in xaas la igu daro waa dhaqanka dictatorkii tegey iyo dictatorka hadda jooga soomaaliya dictatora galageeyey waxaan rabaa marka mid aan idin sheego somaliland waxaan idin sheegayaa suurtagal maaha dhaqanka soomaaliyeedna gafuu ku yahay example raalli ha la ahaado mathalkaas maha mahawa nin baa gabar guursaday uuray yeelatay
waa isaga tegay gaaja qabatay waa wallacday waa dhibtootay waa dhashay waa iska kabatay cunugkeedii korsatay dilaa loogu daray dhaawiciyaa ku yaal dhag iyo ilaa go-an ninkii dhibaatadaas u geystay mid ka darana yimid wuxuu yidhi naagtan ilmaheedaba anaa iskale iyo waxay shaqaysatay war dhibkii hore ay geysataa yaalla igala hadal somalilan lacag lama sii karo somalilan db wall lama heshii karto qatarna waxay rabtay qabanaysaa somalilan wadda ma dhisa karto somalilan ku dir ma jirteen iyo dhulbaanta iyo ku dir iyo haddii ilaahay ku roon yahay iyo cidihii kale somalilan waxay rabtan ku sameeyay waxaan rabaa marka inaan idin sheego walaalayaal reer somalilaanow annakaa dad indhala noo taliya annakaa deegaankanagii ow hoogi annakaa ugaaskanagii wax codsadaa annakaa imaamkanagii wax codsadaa annakaa dadkanagii sharaftaga dhulka ku dhaceen annakaa gabdhahanagii guur beeleen annakaa dadkanagii i kala tageen annakaa qiimo beelnay war waa haysaan waa naga amni badantihiin oo haddii cid lagu beeraa in adinka idinku beeray ahayd waa naga horumarsantihiin haddii cid lagu beeraa in lagu beeraa adinkay ahayd dadkeennu waa ka qaalisan yihin haddii cid lagu beeraa in lagu beeraa adinkay ahayd ciidankeennu waa ka fiican yahay haddii wax lagu beeraa in idinku beeraa adinkay ahayd booliskeennu waa ka fiican yahay haddii wax lagu beeraa in idinku beeraa adinkay ahayd haddii cid wax la su-aalayo tale la su-aalayo reer somalilan in la su-aalay ahayd fiiri gabadha uu qabi jiray cigaal ayaa waxay ka qiimo badan tahay miisaanka haddii la saaro hawiyo dhan adnaa ka miisaan badan adna aadana ka miisaan badan markaasaa gabdha yaryaroo farmaajo taageersan oo haddii ilaahay kuroonaya gaalo qabaan oo xigmad iyo fahmad lahayna caayiya waxaan rabaa marka inaan idin sheego haddii aa wax garanaysaan reer somalilan odayaalkiina khataarada ah ee farmaajo uu lacagta soo siiyo uu leeyahay soomaalinimaa la gaaray soomaalinimada aadan barre ducaale tiimka farmaajo uga qoslayaan soomaalinimada qalbi dhagax lagu dhiibi soomaalinimada habeenkii guryaha la iskula dheelmado soomaalinimada jabuuti oo dhul laga haysto soomaalidii noogu wanaagsanaa eritrea cunaqabataynta ha laga qaado farmaajo yiri soomaalinimada wixii soomaaliya yaalla la iibsaday shidaalkii waa la xaraastay oo kalluunkii waa la xaraastay oo dhulkii waa la xaraastay oo dadkii waa la xaraashay oo intii joogto waa la kala diray waxa somalilan loogu yeeray maxaa waaye maxaa loogu yeeraya ka muuqda maxaa loogu yeerayo fahmada maxaa loogu yeerayo meesha yaalla wax maxay waxaa la iibinaya sidaa awgeed waxaan rabaa inaan dhaho wallaahi waxaan dhihi lahaa somalilan waa baxsateen xilli aad fahmad lahaynaa baxsateen waxaan rabaa markaan somalilan ka sheekeynayo ujeedada aan leeyahay puntland ma fahmaysan waxaan rabaa inaan u sheego dadka hawiye khaasatan kuwa reer galmudug inay fahmaan dadka qiimaha waxay ku yeesheen fiiri ninka reer somalilan ee nabadoonka ah ama ninka reer somalilan ee xilka hayay muqdisho jooga wuxuu ka miisaan badan yahay imaamka abgaal wuxuu ka miisaan badan yahay nabadoonka abargidir wuxuu ka miisaan badan yahay nabadoonka shiiqaal maxaa kalifayay dhul iyo dad iyo deegaan hoystaa hal arrinaa idiin sheega aad fahamtaan siyaasiyiintii joogtay muqdisho waxay gaareen in la yiraahdo gafka loo gafaayo boqolaal farmaajo ku ciddiisa inay leeyihiin ciidankii gaajeysnaayee muqdisho joogay ee aabihiis cashuurta laga qaaday ilma adeeryaalow niman hooyadiis dhagaha loo qaban wax rag loogu mahmahani war gabdhaha nagiya dhigahana loo qabtay reer somalilan waa kufnay oo waa jabnay oo waa hoognay oo dadkanagi waa macno beelefiri askar gaajeysana waxaa leeyahay waa ciidankii sheekh shariif iyo haddii ilaahay ku reeyay staafkii oo haddii yihiin ciidanka sheekh shariif iyo baalkii oo ciidanka gada laga keenay ee jooga madaxtooyadana ay yihiin ciidan qaran ciidanka haddii yihiin xataa ciidanka farmaajo la jooga xasan sheekh iyo la jooga haddii yihiin sheekh shariif haddii ciidan qabiil yihiin kuwa farmaajo ugada ka keenay ciidan qaran yihiin ciidankii shimberlays la jooga meeshay ciidan qaran yihiin ilma adeeryaalow reer somalilan annakaa jabnay waa garateen wallaahi wax soomaaliya ah ugu soo biirtaan inaan garanay wax soomaaliya loogu soo fiiri maxaa kusoo biirtaa nin indhaa tuug ah dhaqan xun benlow ah amni aan haysan afrikaan waardeeyo gabadhiisii macno beeshay deegaankii sii iibsaday baddii sii iibsaday shidaalkii sii iibsaday kalluunkii sii iibsaday korrobtid ah dadka iska dila qaraxa ku dhinta aan qiimo lahayn meydkiisa aan la sheegin ma waxaasa reer somalilan oo sugaysaan oo inaad kusoo biirtaan arabtaan wallaahi bilaahi tallahi naga calan fiicnidin calankayga waa kaasaa wax ku qoran mala shan gees waay calankani laa ilaaha illa ha ku qoran naga amni badinidin maanta meesha maraysaan iyo nabadgelyadii amniga haysataan ma haysano soomaaliya muqdisho kaama soo jirto axmaqaa jooga dad liitaa jooga soomaaliya waxay ka jabtay hawiya ka jabtay soomaaliya hawiyaa jabiyey soomaaliya hawiyaa la haray nin burca jooga nala soo hadlay
arday tashada waartiinii qabsada war ma idin soo dirnaa mar waa nacaayey oo wuxuu yidhi ma idin soo dirnaa dad wax idin bara mar waa nacaayey odayaalkanagii wuxuu yidhi wax ma idin barnaa mar waa na guubaabiyo wuxuu yidhi war noolaada bini aadan iska dhiga wax nala ku sheega waa garan weyn sidaa awgeed waxaan rabaa walaal inaan dhaho xanuunka soomaaliya meeshuu ka jiro oo nagu dhacay wuxuu yahay xanuunka muqdisho ka jira meesha soomaaliya laka qalantay waa muqdisho soomaaliya muqdisho u dhimanaysaa wixii soomaaliya lahayd muqdisho lagu xaraashaya kalluunkii soomaaliya muqdisho lagu xaraashay sidaa awgeed reer somaliland cid aa sugtaan cid idan la hadasha cid haddii ilaahay ku rooya macna firi qofka waxaa wax laga qaataa markii kaa fahmad badan yahay nebiga xadiiskiisi wuxuu ahaa la saaxiib qof aadan ka shalayn hadhihin ilaahu maxaan fulaanan qalin ula saaxiib la saaxiib qof haddii ilaahay ku roon yahay carfaaya wuxuu qof ha la saaxiibin naafiqil kiirka iyo haddii ilaahay ku roon yahay haddaad la saaxiibto ninka bahalka buufiya haddii ilaahay ku roon biraha tuma maraduu kaa gubaa huu yiri ama haddii dambasa ku gaaraysa laakiin la saaxiib qofka barafoonka iibiya carafka heshaya iyo catar kuu mariya iyo catar ka deensata iyo catar ku siiya waxbaa ka faa'iidaysaa warreer somaliland oo muqdisho waa naafiqil kiir waa meel gubanaysa waa meel biraha lagu tumo waa meel dadka lagu tumo waa meel dhiigu filqinayo waa meel cadaalad aysan ka jirin waa meel fahmad aan lahayn waa meel isku dul nool yahay waa meel khadiija deeriya ka tiraysa khadiija deeriya u dhaaranaysa annaka nagu soo celiya annakan gaariya wuxuu yiri hawiye ma gabyo oo soomaalida kale ma gabaydo oo dadka kale ma gabyaan gaariya wuxuu yiri maxay u leedahay mataqaan xildhibaano isaaq oo jooga muqdisho waxay rabtaa inay cod ka qaaday farmaajo iyo khayre ugu shubto khadiija deeriya noo tashatay isaaq waa jabnay oo hognay oo indhabeelnay ilma adeeryaalo sida jabuuti noo anfacdaad noo anfacaysaani baxsada oo tiina u baxsada oo mar dambe hala shirinina oo waqti haysaga dhuminina oo ka fikiraysa dadkiina u fahamsii lahaydeen oo ilmihiina gabdhiheenna u sheega waxa maslaxadda mustaqbalka ugu jirto oo been maaha firi somaliland markay dowladda derbiga saartay subaxaas wax weynay garatay maxaa yeelay anigaa saaki waxaa la iigu faanayaa cabdullaahi yuusuf oo dowlad muqdisho keenaa la iigu faanayaa konton kun oo qof iga dilay konton kun oo qof marka ninka iga dilay ayaa saaki la ii xayeysiiyaa dowladdii cabdullaahi yuusuf muqdisho keenay annakaa dowladdii muqdisho keenay maxaa yeelay waa sheego weyne waa ku xisaabtami weyne waa dhaha weyne sidaa awgeed waa garateen reer somaliland waa garateen allow gartow geeri ka ahay waa khaa'in waa dabagura ballan male ahdi male dhul ma haayo dad ma haayo fahmad ma haayo ilma adeerayaalo waa baxsateene waana anfacaysaa example aan idin sheegaya haddii ilaahay ku reeyay somaliland aqoonsada wareer reer puntland somaliland aqoonsada ilma adeerayaalo dantiina ku jirta ma jirteeno war waxba inka allaamayo dhul ma jirto dhulkiina inka weyn war ma jirteeno dhulkiina inka weyn waxba idin tari maayaan kuwaan haddii ilaahay ku roon yahay idinku quuqinayo waxaan idin sheegayaa marka soomaalidu iyadaa isku fadhisa meesha ugu daran oo soomaaliya loogu fadhina waa magaalada muqdisho waxaan rabaa marka inaan u sheego waxaa caawa usoo galay meeshaan soomaalinimo mataale reer somaliland oo danteena qabsada waa naga dhaqan fiicantiin waa naga amni badantiin waa naga horumarsantihiin xasuus baad leedihiin dadkiinaa idin taliya gabdhihiinaa qiimo leh hooyooyinkiinaa qiimo leh annaku waa jabnay waa hoognay qaa'imiinaan nahay etoobiyaan u shaqaynaa fahmad ma lihin odayaalka nagu waa caaqiin ra-iisul wasaaraha na soo maray lo-du biyaha lacaba maanta madaxweyneyaalkii soo maray hawiyaan qiimo lahayn qof maanta macnaha go-aan leh oo muqdisho ka dhigi kara maxaa la sameeyaa ma jiro waxaa la isku haystoo la iibsanaya waa reer muqdisho xuquuqda dhunta waa dadkii hawiye adinkaan dhumin reer somaliland ilaahu rabbi idin gargaar waa garateen halabaada ka dhaliyaal caawa markaan usoo galay waxay tahay ma aqaano nin xaaskiisii ay dariska baryayso wuxuu ugu yeero xaasas kale inuu guursado waa farmaaje ma aqaano wax somaliland loogu yeero iyadoo maanta ka horumarsan meeshii siyaad barre uga tegey ma aqaano wax reer somaliland loogu yeero iyadoo muqdisho aysan wax qiimaa lahayn ma aqaano iyadoo gabadha reer somaliland arooskeeda lagu dhigo hoteelada qiimaha leh iyadoon cabsanaynin kuwa muqdishona ilaahu noo gargaar yaan gabdhahayga caayine ilaahu noo gargaar yaana gabdhahayga caayine ay marayaan xaalkoodu maarata ceebta allah asturo wax maarata aan kula heshiino ma aqaano iyadoo bad iyo beri iyo dhul iyo deegaan iyo dad bal la iibsaday wax somaliland loogu yeero reer somaliland tiina garta reer puntland confederation ku dhawaaqa reer jubbaland tiina garta hawiye soo maha iska codsada wixiina iska codsada waxaan codsahaynaa haddaan askarin qori wata
mushaarkaygaan codsahaynaa waxaan codsanaynaa ninkii doraadna lika dilakii ku xigaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa inaan shar qabsanaa codsanaynaa waxaan codsanaynaa haddii in dhibkan laka dayaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa laa ilaaha illa wax aan noolayn wax laguma darsan reer somaliland wax aan noolayn wax laguma darsan reer somaliland waa noo shahiina baxsada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu